waxaan leeyahay madaxdeena qiimaha badan ee u tartamaysa kursiga dalka ugu sareeya war ninkii laga helow hadhow hadal ha keeni hadhow waa laygaga shubtay ha odhan guddidaa doorashooyinku waxay ku dhawaaqaan gar iyo gardarraba qalbi qabow kulliqoo ku qaado haddii albaabkaa la furo waxba inoo xidhmi maayaan nin walba way u sahlantahay berri inuu yidhaa anna waa laygaga shubtay alxamdu lilaahi waxdah والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا ليال إلهي نعموينكو إنو قلي ويفر بدنيه إنو متركو بكره وحكم إذا سيدا إنو شاقناي نعمدا نبت قليده هي أمانك وحكالو كمدا نعمة أمن الانتخابات مالنتي أربعة دي وحددك إنو أدريرين دورشوين doorashooyinkii nabadgelyo ayay ku bilowdeen kuna dhammaadeen waa nicmo ilaahay inoo galay oo inaynu garanno ay dow tahay waayo in fara badan wadnaha afarta lagu hayay oo waxa weeyaan sanadkan siday dadku u cabsadeen hore looguma cabsan haddana walilaahi alxamdu walminna deera iyadoo aanay herdiyin oo qofna aanu qof ku baydhin ayay inoo dhammaatay waa nicmo weyn oo ilaahi inoo galay galladaa inaynu garanno in badan aynu mahadinno ay waajib inagu tahay ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa nicmada nabadgelyada iyo ammaanka doorashooyinkii uu ku gebagabeeyey alla inoogu dhammeeyey waxaa kaloo aynu u mahadnaqaynaa cid kastoo lug ku lahayd oo kaalinteedii kaga beegnayd buuxisay oo ka qayb qaadatay waxaa ugu horraysa guddida doorashooyinka qaranka oo si habsami ah oo dadaal iyo howlkarnimo ay ka muuqatay hawshooda u gutay una gudanaya ilaa hadda ilaahayna subxaanahu wa tacaala aynu ku weydiisanayna biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa inta u dhimanna inuu ammaanka iyo quruxda ugu dhammaystiro oo aanay waxba inaga dheelin ama aanay naga ciirin waxaa kaloo mahadsan guddiyadii kale guddidii anshaxa doorashooyinka oo runtii iyagu xujadii ku oogay dadka walow dembiye fara badan aynu gallay kolkii ololaha lagu jiray haddana hadh iyo habeenba guddidaa anshaxu waxay ka hadlayeen ilaalinta akhlaaqda iyo aadaabta iyo anshaxa iyo xumaanta ummadda iyo bulshadu inay iska ilaaliso iyagu xilkoodii waa guteen walow dembi fara badan dadkeennu ay galeen allahay naga dhaafee waxaa kaloo runtii mahad mudan laamaha ammaankee kala duwan oo hay-adaha dowladdu ay u xil saartay ilaalinta iyo inay ka howlgalaan doorashooyinka iyaguna si habsamiyay u guteen ilaahayna waa ku asturay waana ku mahadsan yihiin waxaa kaloo mahad mudan culimmada dalka iyo ganacsatada iyo waxgaradka iyo waayeelka ummaddan oo ilaa maalintii ilaa maanta aan ka hadhsan inay dadkooda baaq nabadeed iyo ammaanka iyo nabadgelyada ay ka wacyigeliyaan oo u diraan waxaana xaqiiqatan muuqata inay dadku u dhega nuglaadeen oo baaqii ummadda iyo culimmada la qaatay oo dadkeennu si habsamiya hawshaasi ay u guteen waxaa runtii markaa aan aad iyo aad ugu mahadnaqaya una ducaynayaa dadkaa dhammaantood kala duwan ee nin walba kaalintii kaga beegnayd uu buuxiyey waxaan leeyahay dhammaantood ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigooda allaha dhaafo ajar iyo xasanaadna allaha ka siiyo ummadda wanaagga ay u tilmaameen ay u horseedeenna ilaahay wanaag adduuniya mid aakhiraba allaha ugu beddelo waxaan halkan fariin uga dirayaa iyo baaq haddii doorashadii ay dhammaatay oo nabadgelye ku dhammaatay waxa inoo dhiman halkii ugu mudnayd ee ugu muhiimsanayd waa in natiijadii lagu dhawaaqo weliba ta ugu xasaasisan ee ugu xumadda badan maaha xagga ururada yaa xisbi qaran u soo gudbay waa maanta yaa madaxweyne noqonaya ta loo dhegtaagayo ee loo hanqaltaagayo ee la leeyahay talow kumaa loogu dhawaaqi waa taas waxaan leeyahay haddaba waxaa horta dhaqankeenna iyo sharcigeenna sharafta laba waxa ka mid ah kolka guurti la diro ee guddi gar loo dhiibto ee la yidhaah waa idinku kalsoonahee noo garnaqa waxay soo saaraan macaan iyo qadhaadhba in hadal laga daba keenaa
dadnimana ma aha dhaqan wanaagsanna ma aha sharafta diintana kuma bannaana sidaa darteed waxaan leeyahay madaxdeenna qiimaha badan ee u tartamaysa kursigaa dalka ugu sarreeya war ninkii laga helow hadhow hadal ha keeni hadhow waa laygaga shubtay ha odhan guddidaa doorashooyinku waxay ku dhawaaqaan gar iyo gardarraba qalbi qabow kulliqoo ku qaado oo hadal ha ka keeni waayo haddii albaabkaa la furo waxba inoo xidhmi maayaan nin walba way u sahlantahay berri inuu yidhaha anna waa laygaga shubtay laakiin waxa ay diintu tahay dadnimaduna tahay dhaqankuna yahay sharafkuna yahay kol haddii guddi loo igmaday hawshaa kalsoonidiina la siiyey wax alla waxay ku dhawaaqaan in qalbi wanaagsan lagu qaatoon hadal laga keenin waxaan horena u idhi iyadoon doorashaduba dhicin imikana ugu celinayaa si cad waxa la soo saaray natiijo ah ee guddida doorashooyinku ay ku dhawaaqdo ummaddaasi waxay ku heshiiyeen ninkii ka hor yimaadaa isagaa fidna walo oo farta lagu fiiqayaa tooshkana lagu shidayaa waa in la wada aqbalo oo wax hadala aan laga keenin waxaa kaloo aan ummadda bulshada ugu baaqayaa waxaa jira wax la yidhaha ishaacaad iyo warxumo tashiil iyo warar la baahinayo wararkaa la baahinayaa maaha gudahaba ee bannaankay u badan yihiin waa yuutuubarada iyo facebookarada iyo kuwan baraha bulshada lagu imtixaamay ayaa xisaabay intay isku geystaan hebel baa horreeya hebel baa dambeeya waxaan leeyahay wararka baraha bulshada lagu baahinayo dhagihiinna ka furaysta oo ha dhegaysanina isha keliya ee warka laga qaadanayo ee ummaddaasi ay ku heshiisay ninkii ka hor yimaadaana fidna walo uu noqonayo waa guddidaa doorashooyinka qaranka somalilan iyaga ha laga warsugo waxay ku dhawaaqaanna ha lagu qanco ha la qaato waxa kale baraha bulshada lagu baahinayana dhagaha laga furaysto waxaa suurowda dadaan dalka lexejeclo ka qabin dad dalkaas iyo dadka iyo dowladda wanaaggeeda iyo ammaankeeda ka xun ayaa waxa suuragala inay warar khaldan oo been abuura inagu soo dhex tuuraan dee haddaynu albaabka iska xidhi weyno inu albaabka u furo waxa weeyaan fitno hor leh ayay inagu noqonaysaa waxaa kaloonan ilaabayn warbaahinta babliga iyo barayfadkaba ka dowladda iyo ta gaarka loo leeyahayba waxaan runtii ugu mahadnaqayaa warbixintaa doorashada si lexejeclo leh oo daljacayl leh oo wadaninimo leh ayay uga howlgaleen oo warkeeda ay u baahinayaan iyagu wararkaa been abuurka ah qayb kama aha warbaahinteenna la yaqaano ee waddanka ka howlgasha barayfad iyo bablig labadaba iyagu waxay isugu tegeen xarunta doorashooyinka qaranka oo halkaasay wixii wara kolba ay ka soo tabinayaan waxaan leeyahay warbaahintaasina waa ku mahadsan yihiin sida lexejeclada leh ee waddankooda ay u ilaalinayaan ay u dhowrayaan waxaanan idin leeyahay warbaahiney halkaa kaga haya oo maalinta natiijada ugu dambaysa komishanka doorashooyinka ay ka soo baxdo baahiya inta ka horaysana iyaga uun daba socdo ha hor soconina tan oo keliya maaha wax alla wixii waddanka ku soo kordha ee dhaca waa inaad lexejecladaa maanta mid lamida aada muujisaan oo waddankiinna iyo dadkiinna aa u tudhaan walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa mowduuca doorashooyinka maanta meel fiican baynu taagannahay meel wanaagsan baynu maraynaa wax yar baa inoo hadhay intaa ha la sabro shacabkuna xilkiisa raaway guteen oo kamay gaabin oo nin walba dee cidduu doonaya waa u codeeyey laakiin natiijada nin walowba nabadgelyo gurigaaga ku sug oo fitno iyo xumaan adigu xaaba lagu shida ha u noqonin wixii soo baxana qaado oo hadal ha ka keeni madaxdana sidaa aan tilmaamay horeba aan u sheegay waajibku waa inay qaataan oo hadal aanay ka keenin dad walaalaheena oo komishanka doorashooyinka qaranka la yiraahdo ayaa hawsha inta ka dambaysa iska leh inagu hawsha inta ka dambaysa wax allaale waxaynu ku leenahay haba yaraatee ma jirto walaalaha ay laga warsugo oo inuu amniga la ilaalino xasiloonida la ilaalino culimada salaadiinta uqaasha ahlul xal wal aqdiga dadka waxa weeyaan dalka waxa laga dhageysto muthaqafiinta waxgaradka
inay ka shaqeeyaan inta inooga hadhay inay dadka ku baraarujiyaan amniga iyo xasiloonidu waa arrin aad iyo aad muhiim u ah aynu ku mashquulisayn wadankan u dhisi lahayn horumarkiisa wax weeyaan meel sare u gaarsiin lahayn caafimaadkiisa iyo iskuuladiisa iyo noloshiisa iyo baahiyaha bani aadamka oo dhan arbacadii dhaweyd shalay maahane doraad ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligii doorasho ayaa dalkan ka dhacday tu 3 xisbi lagu dooranayo iyo tu madaxweyne waxa weeyaan lagu dooranayo marka loo eego dal yar ictiraaf lahayn waxa weeyaan caalamtaality iyo Afrika ku nool waxa weeyaan ku yaala markaynu eegno xitaa gobolka aynu ku nool lahay waxaynu oran karnaa mucjisooyinkii ka mid tahay in 2,200 goobood dadku u dareeraan iyagoo amni iyo xasilooni waxa weeyaan ku socda inay doorasho qabsadaan oo doorashadu si qurux badan ugu dhamaata waa nimcooyinka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dalkan iyo dadkanba uu ku galladay ama uu siiyay oo doorashadaasi ku dhacday si aad u qurux badan oo bisayl fara badan dadka uu ka wada muuqanayay deganaashi iyo xasilooni walaalayaal ay ka muuqanaysay marka ugu horeysay Ilaahay baan subxaanahu wa ta'ala uga mahad celinaynaa sida quruxda badan leh ee qiimaha badan leh ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala doorashada aynu ka naxsanayn aynu ka baqanaynay aynu ka warwaraynay muddooyinkii ugu dambeeyay in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala gabagabo wanaagsan uu inoogu dhameeyay Ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala mahadaas oo dhan ay u sugnaatay mahadda labaad waxay u sugnaatay walaalayaal xukuumadda oo ka shaqaysay hawsha komishanka doorashooyinka qaranka 7 xubnood ee qiimaha badan leh ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryay adduunka aakhiraba inuu barakeeyo awlaadoodii reerahoodii iyo noloshooda baynu nolol wanaagsan u ka dhigo inta ay ku hadhaynay si wanaagsan insha Allah ta'ala u dhameeyaan baa Ilaahay uga baryaya ciidanka qaranka noocyadiisa kala duwan iyo dareesyada kala duwan ee sidaan iyo magaca kala duwan ay leeyihiin iyaguna hawsha inagu daqiiqadun baynu codaynay maalmo dhan ay ka shaqeynayeen ay taagnaayeen cadceeda iyagana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha barakeeyo intaas oo dhan waxaaba ka horeeya shacabka dalkan ee qiimaha badan leh ee waxa weeyaan dadweynaha sharafta badan ee dhagan nugulaaday ama awaamirtii qaatay gaari ma kaxayn kartaan halkan istaaga halkan fadhiisa si wax allaale wixii amray la siiyay cid allaale cid diiday cid ka murantay TV-yadana kamaynu arag intaynu soconayno meelaha maraynayna laba qof oo isweydiinaya alxamdulillah rabbil caalamiin maynu arag bisayl fara badan baa runtii dadka ka muuqday waa la iswada caawinayay biyaha iyo biskuudkaas la kala qaybsanayay dumarka gooni loo ixtiraamayay dadka baahiyaha gaarka qaba baa gooni loo ixtiraamayay waa arkayseen dad indhala dadaan cagooda ku socon ayaa si ay codkooda u dhiibtaan waxay u soo mareen meelaha ka daawanayeen ku arkaynay wax lagu farx dadkuna ay caawinayeen askartu ay caawinaysay shicibkii ay qadimayeen ee horeysiinayeen lahaayeen bal u dhameeya alxamdulillah rabbil caalamiin waa nimco Ilaahay jalla wa ala uu ina siiyay marka inagu horta waxaynu ahaynoon inaan codka dhiibano qof walba inaga mid waxa weeyaan codeynayay uu codeeyay cid allaale cid uu doonayay buu siiyay taasi waxa weeyaan arrin dadka waxa weeyaan u furan bay ahayd oo qofina qof muu qasbayn oo manuu dhibayn inaga hawshayna kaasi ku dhamaatay dad walaalaheena oo komishanka doorashooyinka qaranka la yiraahdo ayaa hawsha inta ka dambaysa iska leh inagu hawsha inta ka dambaysa wax allaale waxaynu ku leenahay haba yaraatee ma jirto walaalaha laga warsugo oo inuu amniga la ilaalino xasiloonida la ilaalino culimada salaadiinta uqaasha ahlul xal wal aqdiga dadka waxa weeyaan dalka waxa laga dhageysto muthaqafiinta waxgaradka inay ka shaqeeyaan inta inooga hadhay inay dadka ku baraarujiyaan amniga iyo xasiloonidu waa arrin aad iyo aad muhiim u ah natiijadii waxay noo sheegeen ilaa 7 cisho gudahood inay soo baxayso waxa laga yaabaa jimciisa bayna madaxweynaha la doortay inuu ducayn doono marka inta aynu insha Allah ta'ala walaalayaal u samirno xamaasadii doorashadu saa inaga dhamaato doorashada sidaa inaga dhamaato culaysa fara badan baa ina fuuray qabyaalad fara badan baa dhacday dadku waxa weeyaan doorashadu way kala fogeysay culaysa fara badan bay gaarsiisay maanta waxa weeyaan doorashada way naga dhamaatay dhawaaqaas oo kaliya inagu haray haynu dhawaaqaana waxaynu u hogaansanaano isuna ducayno gacantana isqabsano haynu ku jiqsiyo ka baxno haynu ku mashquulisayn wadankan u dhisi lahayn horumarkiisa waxa weeyaan meel sare u gaarsiin lahayn caafimaadkiisa iyo iskuuladiisa iyo noloshiisa iyo baahiyaha bani aadamka oo dhan sidii aynu dabooli lahayn falowgeeda aynu waxaan ka shaqeyno xamaasadana baabkeeda sida insha Allah ta'ala aynu ku xidhno maalmihii ugu dambeeyay waxaynu maqlaynay dad warar doorashada ku saabsan iyo nambaro iyo wax weeyaan jadwal la soo saaraya oo doorasho kala gadisan soo saaraya waxyaalahaas waxay carqaladeynayaan walaalayaal doorashadeena quruxda badnayd ayay naga carqaladeynayaan inaga fool xumeynayaan nambarada inagu ma ogin doorashada waxa weeyaan waa la tirinaya wali hawshii waa lagu jiraa hawsha dadka iska leh aynu dayno bulshaduna ha sugto dadka iska leh kelmadda ugu dambaysa iyo go'aanka dhabta ah ee insha Allah ta'ala aynu ka heli doono waxa weeyaan komishanka doorashooyinka qaranka
markay natiijadu soo baxdana aynu sidaa ku hambalyeynayno sidaa ku aqbalno aynu gacmahana saa isku qabsanno qof khasaarayna ma jireen dhammaanteen waynu guulaysanay dalkana wuu guulaystay waxaana iloobayn kadalika walaalaha waxa weeyaan warbaahinta iyo waxa weeyaan qoladan social media la yiraahdo oo iyagu runtii shaqo aad iyo aad u fara badan qabtay xalay tan waxaan daawanay 12 habeenimo ayaa la wareysanayay gudoomiyaha waxa weeyaan gudidan komishanka doorashooyinka iyo raggii agtaagnaa raggaasoo dhami waxa weeyaan waxay u soo jeedaan in hawsha waxa weeyaan soo fudeydiyaan dadka walaalaha inoo soo baahiyeen jazakumullahu khayr baan iyaga leenahay horumarka walaalayaal dalka iyo dadka baynu ka shaqeyno culayska intaasoo muddo ay nahayee aynu waxa weeyaan madaxu inagu xanuunayna haynu baabkiisa sidaa ku xidhno weeyga dhamaadkiisa marka natiijada la iclaamiyana cidii ilaahay subxaanahu wa tacaala u qoray haynu u baarikno u tahniyadeeyno intaa ka horeysana wararkan kuteelka beenta ah ee wax ka jira aanay jirin haynu iska ilaalino sidaasaan insha allahu tacaala aynu isku ognahay gudida doorashooyinka qabanqaabinaysa ee la jirda ana iyagana ha loo duceeyo ilaahay inuu ku soo khayrka ay bilaabeen khayrka ka muuqda ee ummadii oo dhan ay arkayso dad toosan inay yihiin ilaahay khayrka ha ugu khatimo waynu hor imani komishankaana inoo sheegi guushu ciday raacday kabacdina waynu ku taadeerin doonaa saddexda xisbi qaran ciddii guulaysataa markaa kadib somalilan ciddii heshay waa hambalyayn inta kalena dee way u ducayso raalli bay noqdeen oo way dadaaleen dhammaanteenba waan wada guulaysanay insha allahu tacaala inay aqbalaan baan iyagana ka rajaynaynaa oo dadweynahooga iyo dadkooga iyo inta ay u tudhaan culimmada iyo ganacsatada gobolka wadalo maanta salaadii jimcaha bulshada kula hadlay miski jaamac weyne sheekh cali jawhar ee magaalada Boorama ayaa bulshada Soomaaliland waxay ku hambaliyeeyeen sidii wanaagsaneed ee doorashada u qabsoontay iyaguna bulshada uga digay inay ka fogaadaan wararka been abuurka ku saabsan natiijada doorashada dhanka kalena waxay xisbiyada tartamaya u soo jeediyeen inay aqbalaan natiijada doorashada marka ay ku dhawaaqaan komishanka doorashooyinka qaranku annagoo dhammaantii joogna miski jaamaca magaalada Boorama ee sheekh cali jawhar halkan waxa jooga culimada magaalada ugu horeeyo sheekh Cabdaashi Cali Jawhar iyo baamshirka magaalada Boorame mowduucan maanta loo kulansan yahay waxa weeye waa mowduuc aad u muhiim ah waa laba qodob oo kaliya qodobka koobaad in loo bogaadiyo shacbi weynaha Soomaaliland ee doorashadii dhaweeyay meelaha aan galay sida wanaagsan ee nabadgelyada u galay in shacbiga la bogaadiyo wanaaga ay sameeyeen iyo nabadgelyada ay ka shaqeeyeen in aad loo bogaadiyo lagu dhiirigeliyo inay sii wadaan iyo qodobka labaad oo ah in ciddii loo idmaday in dadka kala saaraan oo garsoorka ah oo komishinka ah wixii ka soo baxa halka la aqbalo oo dadka tartamaya ay aqbalaan oo mahadnaqaynaa talabaad waxaa leh dadweynaha ku dhaqan Soomaaliland oo dhan meel kasta ay joogaanba sida sharafta iyo qiimaha leh u codeeyay ee nabadgelyadu ku dhahan tahay iyagana mahadnaq ballaaran ayaanu celinaynaa tan saddexaad waxaan leenahay dad baa jira iminka wax sii saadaalinaya oo dadkii bulshadii weerarinaya oo waxay hubin sheegaya oo komishinku dhowr jeer ka cawday dadkaa waxaan leenahay qof kastee wuxuu jecel yahay ilaahay ha u rumeeye waynu hor imani komishankaana inoo sheegi guushu ciday raacday kabacdina waynu ku taadeerin doonaa saddexda xisbi qaran ciddii guulaysataa ayaynu ku taadeerin doonaa maxaan saddex xisbi qaran ka filaynaa waxaanu ka filaynaa xisbiyadu way tartamaan kolba mid baa guulaystaa kolba mid baa laga guulaystaa ciddii guulaysatina inay samaha ku agto waddanka ciddii laga guulaystina sidii magaalada Kamal Harris xisbi jamhuurigii magaalada Mareykanku u hambalyeeyay xisbigii kale ka helay inay u hambalyeeyaan yayna halkan noqonin kelmadu sheegay Sheekh Cabdulaahi Sheekh Casharawi ka hor oo ayna dhicin kii hambalyeey waaya waxaan odhanaynaa Harris dhan iyagoo gaala oo diin lahayn ayay sambeynayaan inagoo diinteena haysana suubay diinteena islaamka walaalaha dhammaanteen ciidankeen lahayn diinta islaamka ku abtisayna inaanu wanaaga isku hambalyeeyni waa muhiim ilaahay waa mahadale
marka labaad dadweynihii sida fiican u codeeyey iyaa mahadale marka saddexaad komishinka weli hadda sida fiican hawsha u wada eedna sugale iyaa mahadale xisbiyadana waxaan faraynaa iyagana kii laga guulaysto inay sidaa u aqbalaan waa la wada guulaystay dhammaanteenba waan wada guulaysanay insha allahu tacaala inay aqbalaan baan iyagana ka rajaynaynaa oo dadweynahooga iyo dadkooga iyo inta ay u tudhaan iyo dadaalkaa faraha badan leh ee dadweynuhu ay sameeyey tabacoogaasi dadka farta ay ku kala saareen inay u tudhaan baan iyagana ka rajaynaynaa taasaan idin leenahay aqbala kii laga guulaysto kii kalena ha hambaliyeeyo xaalku waa duco iyo hambalyo isku jirta ducada sheekh albeledka noo dambeeyo oo noo marin hambalyadu waxay tahay ummadii Soomaaliland wixii laga rabay way yeeshay ummadii caalamkuna sida gaalada shalay ay sheegeen way noo mahad celiyeen innaguna waa in ilaahay aynu u mahad celino maadaama dad islaama oo ehl tawxiid aan nahay inta hadhay waa farsamadana komishinka inoo haya si qurux badan bay wax u wadaan dadkan ka hordhacayana waxaan ka yarwaaninayaa inaanay ka hordhicin oo ay iyaga daayaan si wanaagsan bay noogu dhammaatay si wanaagsan ay noogu dhammaato qurux badan markaa kadib Somaliland ciddii heshay waa hambalyayn inta kalena dee way u ducayso raalli bay noqdeen oo way dadaaleen haddaan kulli la dadaalina nin qurihii dadaal ma uu ka sameeyo waxa ma noqonayo haddaad buuqiyo isqabqabsi aragtana cadaalad xumaa jirta maantana si wanaagsan bay Somaliland uga dheeraatay gaal iyo muslimba waa la hambalyaynayaa sidaa quruxda inoogu dhammaatay baynu ku ducaynaynaa kuna ogaanaynaa ilaahayna mid in anfacahay noo soo saaro ilaahba subxaanahu wa tacaala mahadle isugu keenay halkan masjidka Sheekh Ali Jawhar waadka Sheekh Ali Jawhar masjidka lagu magacaabo in isugu keenay odayaashii soo qaban qaabiyeen aad bay mahadsan yihiin Xaaji Abubakar Shiine iyo Muumin Jaamac culimada awal baa anagu waan sii joognay masaajidka laakiin culimada wixii iyagu yimideen aad bay mahadsan yihiin mahad ka bacdi waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa awalan shacbiga ummadda Soomaaliland ee nabad ku ciideeyay waxay muujiyeen oo waddanka u noqdeen muraayad cad bay u noqdeen waxa ku furan sharaf iyo ammaan in dadkii yimiday gaalada ahaa ee yimiday ama islaamka ahaa ee dibadda ka yimiday ay la tacajubeen ay la yaabeen oo ay yiraahdeen waa ummadani waa ummad ka duwan dalalkii Afrikada ee nu arki jirnay waa ummad ka duwan ay yiraahdeen wixii aan filaynaa macnaan arag bay yiraahdeen waxay laga cabsi qabay in wax buuq iyo wax arkaan aad iyo aad bay noo bogaadiyeen marka waxa gaaladiiba inagu bogaadisay ee inaguna aan sida fiican u codaynay qaadashada oo baa maanta waxa meesha ku jira ay tahay si fiican inuu maxay hayday u qaadano waxa kaliya meesha yaala waxa weeye ka hela in loo duceeyo in Ilaahay dariiqa toosan waafajiyo koodii hela كوايا وإن لو تعيو لو تعيو إلهي وخير بدن مدحين مدى ودوني وخير بدن إنه إلهي سيو وأنا هو لينك ما توايا ماشى كرسي وايا قنعة إلهي إن إلهي تعدي إن شاء الله تعالى إلهي هو أقبل الله سبحانه وتعالى ويوحى الله أركيا أنا وحي يقوم بغطاء إن أنا كدعين لينك كرسي كفريستا كما دعو لينك قنعة يرى والله إيجا هيرا وحكرون أنت راعينا لينك هلا إسقى هذا الكيس هو ضمبيا وحورنا يا ويد ضمبيسا كلا هلاي يعني كديني وان قنعة وكذا يعني كديني إن ضد دب السعودي أما حزبنا ما هو دب السعودان أما قبيل هو دب السعودان إنه يراه وردت كي إتاجر ثنايو وما هتسنتهين كرسي أذي دلاشين وان واي لكن واحد ينفريا حصلوني بان ينفريا إنه أنت يراه إنه إسرائيلي مركب بارك الله فيكم إن جمعنا كان عدبوا ذمان سنتين اللهم آمن روعاتنا وأسكننا في أوطاننا آمنين سالمين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين ود ذا دور شويك قبل قابلين سئل الجلد أنا يجنا هاللوج ها إلهي كسر خير كاي بلابين خير كم موضع يوم مدة أردنا أي أركي سدد توصل إلى يهين إلهي خير كهو ختمه وصلى الله على سيدنا محمد